السلام sorry guys السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي وإيدي سلامة ملك استوديو دوكا كجوجتين كسر هذا جيد أوفيشيال هدي أتصاحي داو هذا نوع عصف فضلا سبسكرايب هدي هورنا ولي جوجتنا ولا القلعات ودو ما سنتهاي ما أنتو حروا إن إذا الوذا فيديو عصب أو رونانتي أدليا ويسو إسليا إن بدنا واقو قصلي دون تاركا كسر هذا مقال كنا ما أنت soo noqosho wanaagsan asxaabteena qaaliga ah arbaab khizar hayaad oo u dhashay dalka Pakistan ayaa sheegay inuu diiday 300 oo gabdhood codsi kaga yimid codsigaas oo ahaa gabdhahaas inuu guursado ninkan culayska badan la arkaysan ayaa sheegay inuusan doonayn inuu guursado gabar ku dhimanayso ama ku jabayso waqariib sidoo kale waxa uu sheegay in naagta uu rabo inuu guursado inay ahaato naag miska waaweyn leh oo adkaysan karta culayskiisa 440 kilogram sidoo kale waxa uu shuruud ku xiray in naagtaasi ay karin karto maalinkii nus jawaan oo cunto ah iyo 40 xab oo ukuna fahanteen ninkan waxa uu nin muslim ah waaye Pakistan uu ku nool yahay wuxuu ciyaaraa musaarixada waxa uu celiyay sida video aad ka arkaysaan waxa uu celiyay waxa la yiraahdaa dugdugleyda ama waxa loo yaqaano cagafta uu celiyay sidoo kale laba gaari oo laba nin ku dhex jirto ayuu isaga markaas celiyay sidoo kale waxa uu haystaa suunka wuxuu ciyaarahan oo feerka ayuu ciyaaraa marka hadal uu sheegay ayaa wuxuu yiri culayskii waa 440 kilogram laakiin waxaan u ordaa sida qof 90 kilogram waa qariib aniga waxa ku qosla taqaana aniga marka isaga marka arko isaga والله بالله وحنا الحمد لله ما انت فلان والله ارتني فلان فانا قاعد مقاف انا سوق استمي لكن انت ما انت حوش حول تقانا انا معنا افرح سنه عاد المدير انا افرح سنه marka asxaabay ninka muslimka ah waxa la rabaa in loo guuriyo gabar Soomaaliyeed oo dabcan culeyskeedu ka badan yahay 100 kilogram marka horta Cabdiqani ila joogo wara Cabdiqani su'aalan ku weydiiyo ninkan bal maxaa leedahay naag oo Soomaali ma loo helaa ninkan maadaama uu nin muslim yahay waxaan oran lahaa nin yahow Soomaaliya horta maadaama nin muslim ah tahay Soomaaliya wax gabar ma laga helaayo sababtoo fartu balbalaarka uga ciilsaneed fartu balbalaarka baraada jiibay gashay marka kabtan waxa waaye meelaha kale ka raadso يا هندي راح قالان ديلا هندي دا ببنه اوكي سؤال كلا كويدينا waxa waaye ninka ma laga yaabo mustaqbalka inuu naag kale u helo wallahi fikrad aantayda ma leena ninkaas inuu naag kale sababtoo ah nin oo 440 kilogram naag talo keena ninkaas hadii loo raadinay naag oo 500 kilogram ma oo labada hab isku buusbuusnaan اوكي ترى waxa kale ninka aqligu leeyahay balka waran kullaa daaq oo 100 kilogram rawa wallahi ninka wax kale waa nin fahant aniga amaamad waa ku qiimay اوكي walaal qal waa baasantahay marka sidoo Cabdiqani sheegay wuxuu yiri fartu balbalaarka waa aragteena umaleynaa fartu balbalaarka diimid loo ya سبحانك يا عظيم والله دتك قار وحنا عبد الغني ومحل عيل لا انا وقت محل عيل سوخ والبو عالمين انغا اردونبو عيل انتو يلا نينك هدو عيلان خوغا معناها waxa laga yaabi lahaa inuu hilibkiisa qabsado mugtahay marka anaga lafeena adkaa hooy subxaan allah ya wariyaahe alxasil waxa waaye su'aal oo waxa taasho nus jawaan cunto ah naag Soomaaliyeed ma karin kartaa wallahi gabdhaheena kiilada bariiska dib ku ah kiilada bariiska laga qanuuniyo يا أنا والله يا ابني كان ناقم هلا أبو
walaalkay nasiibkaaga qabta inaad Soomaali meelaysid sababtoo gabdheena labadan bir waa iscaatay fartu balbalaarka waa cayilsaneed idan jiimay ka shaqraan marka sidoo kale xilliga yaraantiisa waxaa la sheegaa in xitaa markuu iskuulka u dhiganayo kursi walba ku fariisto inuu jawi jiray ilaa iyo yani heer gaaray yani macallimiinta in iskoolka dhan looga soo saaro culeyskiisa dartiisa yani kursigaan uu ku fariisanaa barada bash kan uu ku fariisanaa bash iskoolkii ninkan khasaaro u keena markii dambe waxaa loo sameeyey kursi gooni ah ninka loo sameeyey oo iskoolka uu ku dhigto asile ku fariisto barada ma fahanti marka Soomaaliya 80 kiilo iyo anagoo kale oo 50 kiilo wara alxamdulillah nacala shaydaan ku yaale wabillahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh channelkana subscribe gareysa iloobin like share comment wa xaqiina videogana share gareeya waad mahadsantiin waani jeclay bye bye